tacliin iyo cilma lagu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bani aadamku waa inta la ogyahay waxa uu bilaabay inuu wax qoro waqti imika laga joogo in ka badan 5,000 oo sannadood ka hor. xadaaradii Sumer ee ku taallay deegaanka la yidhaahdo Mesopotamia ayaana loo nisbeeyay inay ahayd meeshii ugu horreysay ee laga hindiso farqoraal dhammaystiran oo ka waya aasaasayaasha ay bulshadaas ama luuqadaasi u baahnayd. marka laga yimaado Sumer waxaa taariikhda ku xusan inay jiraan 3 meelood oo kale oo la hubo inay si madax bannaan u ikhtiraacdeen farqoraal iyaga u gooni ah. xadaaradii weyneed ee Masar ayaa kusoo xigtay oo iyagu dhowr boqol oo sano ka dambeeyay Sumer, hase haatee waxaan caddayn inay si madax bannaan u hindiseen farqoraalkooda imika caanka ka adduunka iyadoo aanay cidina saamayn inay fikradda wax qoraalka ka dhaxleen Mesopotamia oo ay wadaageen xad ganacsina ka dhaxeeyay. China ayaa iyaduna wax qoridda bilowday 3,000 sano ka hor, halka xadaaradihii kownka Ameerikadu ay iyaguna iskood u bilaabeen inay wax qoraan muddo hadda laga joogo 2,500 oo sano ka hor. dabcan farqoraaladan aynu carabaabnay waa farqoraalada dhammayska tiran ee haatan la dirsay, se waxaa dabcan iyagana ka horeeyey qoraallo ku xardhan godad ama laga helay iyagoo ku qoran agabyo guri, dhoobo iyo wixii la mid a. hase haatee qoraaladaas ilaa haatan lama turjumin, lamana yaqaan inay yihiin farqoraallo dhammaystiran iyo in kale. baniaadamku hindisaha lagu bilaabay wax qorista kadib waxa uu bilaabay inuu kala ammaanaysto fikraddii ahayd wax qoridda, oo shucuub fara badan ayaa waxa ay bilaabeen inay iyaguna samaystaan farqoraallo u gaar ah iyagoo tixraacaya kuwii hore loo ikhtiraacday ee ka agdhowaa. kala ammaanaysigii farqoridda waxaa ugu dambeyn si toos ah sabab ugu noqday farqoraalada haatan adduunka laga isticmaalo oo in badan oo ka mid ah si toos ah uga farcamayn kuwii qadiimka ahaa ee aynu hordhacayna kusoo sheegnay. wax qoridduna sideedaba marka la isbarbar dhigo qaaradaha waxa ay si degdeg ah ugu faaftay Aasiya, Yurub, dhulka haatan loo yaqaan. taana waxaa saaciday dhulkaas oo u ballaaran dhanka bari ilaa galbeed. xogo ku saabsan sababta dhalisay inay faafidda ku sahlanaato dhulka u ballaaran bari ilaa galbeed waxaad ka daawan kartaan fiidiyoogii hore ee aanu ku lafaguraynay sababta dhalisay in Yurub iyo Aasiya uga gacan sareeyaan qaaradaha kale marka ay noqoto horumarada lagu talaabsaday. haddaba waqtigeennaynu hadda joogno waxaa farqoraalada caalamka marka khubarada ku takhasustay qaybinayso loo qaybiyaa 5 qaybood oo la kala yidhaahdo abjad, alfabet, abogida, syllabaries iyo logo syllabaries. luuqadeena Soomaaliga waxaa 1972 kadib la isku waafaqay in lagu qoro hab qoraalka Laatinka kaasoo soo hosgalaya dalladda ay kulmiso farqoraalada la isku yidhaahdo alfabet. alfabetka shibano iyo shaqal kasta waxa uu leeyahay calaamad gooni ah sida a, ba, ta, e iyo wixii la mid a, waxaana marka la akhriyo loo akhriyaa bidix ilaa midig. Laatinka waxaa kale oo ay isku dallad alfabet yihiin farqoraalka Greek isticmaalaan iyo ka lagu qoro afafka Slaafiga ee Ruushku ka mid yahay ee loo yaqaan farta Cyrilliga. sidoo kale farta laga isticmaalo waddanka Georgia iyaduna waa alfabet oo shibanaya shaqal kasta waxa uu leeyahay sumad u khaas ah. farqoraalada Laatinka ee aynu isticmaalno ta Greek haatan caanka ku yihiin iyo ta Ruushku waxa ay ka soo jeedaan ama laga soo dheegtay farqoraalkii qadiimka ahaa ee ay adeegsan jireen Greekgii hore. dhanka kale abjadku waxa uu isagu xaraf kasta u taagan yahay shibane keli ah. tusaale ahaan farqoraalkii masaaridii hore oo aan shaqalo lahayn, farqoraalka ay maanta adeegsadaan Yuhuuddu inta ugu caansan oo ah farta Carabida, dhammaantood waxaa la isku yidhaahdaa abjad waxaana loo akhriyaa midig ilaa bidix. inkastoo maanta qofkii dusha ka eega aanu wax xidhiidha ka dhex samaynayn farqoraalada abjadka ah iyo kuwa alfabetka ah, hase haatee waxaa aad u cajiib ah in labaduba ay isku far keliya oo qadiima ka abuurmeen. sidaanu soo sheegnay, alfabetka qaarkii waxa ay si toos ah uga yimaadeen farqoraalkii Greega ee qadiimka ahaa. farqoraalada abjadka ah ee ay ka midka yihiin Carabida iyo Cibrigu haddaba iyana waxa ay si toos ah uga tafirmeen farqoraalka luuqadii la odhan jiray Aramaic ee qadiimka ahayd. labada farqoraalna waa Greekgii hore iyo Aramaic waxa ay ku abtirsadaan farqoraalkii Finiqiyiinta, halka haddii farqoraalka Finiqiyiinta la sii dabagalo isaguna uu marka dambe noqonayo mid ka tafirmay farqoraalkii masaaridii hore. isbeddeladan aad u jeedaan ee baaxadda weyni maalin iyo lababa kuma aysan dhicin waxa ay dhaceen kumanaan sannadood oo shacabba siduu mid kale uga ammaanaysanayay farqoraal oo in yarna ka duwayey kii hore ayaa sababtay in maanta ay sidaa u kala duwanaadaan heeran la soo saari karin xidhiidhka abahaaneed ee ka dhexeeya. halka kuwii hore shibane ama shaqal kasta u taagnaa dhawaaq gooni ah, farqoraalkan syllabariga oo ay tusaale u yihiin ta Jabaaniisku waxa uu ku dhisan yahay syllables ama waxa af Soomaaliga lagu yidhaahdo alano. tusaale ahaan waxaa alan la yidhaahdaa marka ay israacaan badanaa hal shibane iyo shaqal ka waa hal alan, halka keena uu yahay alan kale. sidaa daraaddeed alan kasta waxa uu leeyahay calaamad gooni ah. sidaad garan kartaana haddii alan kasta loo yeelo calaamad gooni ah waxa ay dhalinaysaa xuruuf aad u badan oo tusaale ahaan ka keliya waxa ay yeelanaysaa 5 calaamadood oo kala duwan. farqoraalka afraad la yiraahdo logo syllabaries waxa iyana tusaale wanaagsan u ah Chinese-ka oo farqoraalkani halka kii hore alan kasta laha calaamad gooni ah, kan badanaa kelmad kasta waxay leedahay calaamad gooni ah.
taasoo ka dhigaysa in farqoraalka Chinese-ku yahay mid aad u adag, waayo waa inaad xafiddaa calaamado fara badan. Qofka Chinese-ka ahna waxaa caadiyan laga rabaa inuu xifdiyo 4,000 oo calaamadood oo ka turjumaya kelmadaha loogu isticmaalka badan yahay si uu u noqdo qof si wacan wax u qori kara. Waxaa jira kumanaan calaamadood oo kale oo luqadani leedahay. Kolay siday aniga ila tahay madax adayg uunba iskaga bedeli la'yihiin farqoraalka adag Chinese-ku oo fartani sida ay maanta tahay iskama aysan bedelin in ka badan 3,000 oo sannadood, taasoo ka dhigaysa in farqoraalkan yahay mid si joogto ah loo adeegsanayay waqtigaas oo dhan. farqoraalka ugu dambeeya aynu maanta tibaaxayna waa ka la yidhaahdo abugida. waxaa farqoraalkan badanaa laga adeegsadaa Hindiya iyo Aasiyada Koonfur Bari iyo weliba Itoobiya. abugida waxa ay kaga duwan tahay alfabeetka shibanaha, shaqal kasta ma laha calaamad gooni ah. dalada silabariskana lama gelin karo oo alanadaas ku shibanaha ku dhisan ee calaamadahan waa ay kala duwan yihiin sideen horeba u soo sheegnay. hase ahaatee waxa u dhaxeeya labada oo sida silabariska waxa uu ku dhisan yahay alano, laakiin alanadaas ku shibanaha ku dhisan calaamadahan waa la isku soo sooci karaa. waa Hindiga alanada ka abuurma ka waad aragtaa sida ay calaamadahan isugu dhow yihiin, halka kuwii alanada ku tiirsanaa alan kasta lahaa calaamadtii hore ka duwan. waxaa xusid mudan in farqoraalada soo hoos kale abugidaaska ee lagaga hadlo Aasiyada Koonfur Bari iyo Hindiya ay ka farcameen farqoraalka la yidhaahdo Brahmi. farqoraalkan qadiimka ah laftigiisa waxaa culimada qaarkiis ku doodaan inay ka soo farcantay farqoraalkii Aramaic ee aynu hore u soo sheegnay inay ahayd tii aasaaska u ahayd farta Carabida iyo Cibriga. dhanka kale farta Ge'esta la yidhaahdo ee laga isticmaalo Itoobiya oo iyaduna ku jirta daladan la yidhaahdo abugida waxay kasoo jeedaa fartii qadiimka ahayd ee lagu qori jiray luuqadihii lagaga hadli jiray Yemen ay ka midka ahayn luuqadii Saba iyo tii Xadramoodiga ahayd. fartan qadiimka ah laftigiisa waxaa la sheegaa in ay ka timi masaaridii hore. farqoraalada aynu ilaa haatan soo magacownay waa qaar hab ahaan ka yimi kuwo kale oo qadiim ahaa oo waqti aad u badan kadib isbedello ay ku yimaadeen dabadeed sidaa ku noqday qaar iyagu iskood u taagan kana madax bannaan kuwa kale oo dhan. waxaa jira haddaba farqoraallo badan oo iyagu ah qaar cusub oo loo hindisay luuqadaan hore u lahayn far ayna hindiseen ashkhaas la yaqaan. tusaale ahaan farqoraalka Cyrilliga ee ka tirsan alfabetiska loona adeegsado in lagu qoro luuqadaha dadka islaamka ku hadlaan sida Ruushka iyo Ukraine waxaa asaaskeeda loo nisbeeyay nin la odhan jiray Cyril oo ahaa baadari Bulgaariyaan ah oo kaniisadu u igmatay inuu dadkiisa diinta kiristaanka gaarsiiyo. Cyril waxa uu markaa hindisay farqoraal cusub si dadkiisa buugtii uu siday ugu turjumo. kolkuu dhintay kadib Cyril ardaydiisii ee fartii uu ka tegay wax ka bedel ku sameeyay oo ka dhigay taa maanta ay isticmaalaan in ka badan 250 milyan ee ruuxi. Hangul iyana waa farqoraal kale oo laga isticmaalo Korea waxaana aasaasay boqorkii la odhan jiray Sejong ee noolaa qarnigii 15aad isagoo ujeedkiisu ahaa inuu bulshadiisa heerkooda aqooneed sare u soo qaado kana maarmo fartii adkeyd ee Chinese-ka ay dadkiisu isticmaalayeen qarniyada. meelaha haatan laakiin farqoraalada cusub aad uga soo muuqdaan waa galbeedka Afrika oo ay ka jiraan luuqado badan oo hore loo qorin. dadaal ay culimada luuqadahaasi u galeen inay afafkooda qoraan waxa ay dhalisay in maanta ay jiraan farqoraallo fara badan oo cusub oo ka soo burqaday maskaxda qof ama laba qof, sida farta la yidhaahdo Adlam ee ay sameeyeen Cabdullaahi Ibraahim Bari oo ah laba nin oo walaalo ah. fartan waxay aasaaseen labadan aqoonyahan 1989 iyagoo markaa 14 jir iyo 10 jir kale ah. maanta fartan waxaa adeegsada dadka Fulaaniga oo tiro ahaan ka badan 40 milyan. sidoo kale dadka la yidhaahdo Wolof ee hoygoodu yahay Senegal waxa ay farqoraal isaguna cusub asaaskeedana uu lahaa aqoonyahanka Asane Fay kaasoo fartan ay maskaxdiisa ka soo maaxatay 1961. af Soomaaligana laftigiisa intii aan la qorin waxaa jiray dadaalo badan oo lagu sameynayo far Soomaali inaga inoo gaar ah oo isku daygeeda lahaayeen culimo iyo khubaro Soomaaliyeed kuwaasoo ka duulayay baahidii ahayd in la qoro luuqadeenan hodanka ah sida farta Cusmaaniga ee uu asaaskeeda lahaa Cismaan Yuusuf Kanadiid 1920yadii iyo fartii la oran jiray Farboorama ama Fargada Biirsi oo uu iyadana alifay Cabdiraxmaan Sheekh Nuur 1933. waxaa kale oo iyadana tusaale u ah fartii la oran jiray Farkadare oo loogu magac daray asaasaheeda oo la oran jiray Xuseen Sheekh Axmed Kadare. waxaynu fiidiyogan si guud mar ah uga taataabanay hababka loo qoro luuqadaha, taariikh guud oo ku saabsan iyo sida loo qaybiyo farqoraalada maanta caalamka laga isticmaalo. waxaanu idinka mahad celinaynaa dhegeysigiina wacan. fadlan subscribe gareeya channelka si aanay idin dhaafin fiidiyoyada dambe. like-ta ku dhufta lana wadaaga asxaabtiina. waad mahadsantihiin. Ramadaan mubaarak. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.